هدعي هديلي ويقعد اسمه عليو هدعي هديلي ويقعد calankan siduu ku yimid midabka haddana uu yeeshay siduu ku yimid waxay ahayd xoogaa hawl muddo soconaysay talyaaniga markuu soo noqday Soomaaliya ku soo noqday la soo celiyo taraasiishib 1950kii muxuu ahaa heshiisyadii qaynuunka lagu heshiiyey oo United Nations u saxiixay oo taraasiishib system ahayd waxaa ka mid ahayd inuu dedejiyo muxuu ahaa processkii muxuu ahaa Soomaali uu wadanka ku soo noqday uu ugu habayn lahaa tallaabo hadba mar walbaba sidii oo dawladnimadooda hadda ay ku qaadan lahaayeen marka calanku wuxuu ka mid ahaa tallaabooyinka ugu horeysay oo talyaaniga iyo ay isku shuqliyeen in calaamad la muujiyo waqtigaas waxaa dhisnaa guddi la yiraahdo Territorial Council ayaa samaysnaa waa hay-adii ugu horeysay oo adugu la tashi ahayd qaynuunada la dejinaya iyo waxa iyo guddigaas wuxuu ka koobnaa oo talyaaniga ayaa weli legislation iska lahaa wuxuu ka koobnaa dad u badan muxuu ahaa dad talyaanigu soo magacaabay odayaasha muxuu ahaa dhaqanka salaadiin iyo qabiile iyo ayay u badnaayeen axsaabtii markaas jirtay oo SYL ka mid ahayd iyagana tiro oo talyaanigu lambar u gooyay ayaa la siiyey SYL waxay ku lahayd meeshaas 5 xubnood ay baarlamaankaas ayay ku lahayd markaas 5 xubnood waxaan hadda xusuustaa aadan cabdulle allah u naxariiste Sheekh Ali Jumcaale oo Hiiraan ka soo galay allah u naxariiste nin la oran jiray Maxamuud Cabdinuur oo ku magac dheeraa Juujo oo isaguna reer Baydhabo ahaa allah u naxariiste saddex Soomaha Xaaji Muuse Boqor hadaan gabsanayn allah u naxariiste oo reer Muqdisho ahaa oo odayaasha xisbiga iyana magaca ku lahaa dhinac kalena traditionka xaqiisa muxuu ahaa lagu taageerinayay oo SYL ayaa isaguna ku jiray iyo qof kale iga maqan waa igu soo dhixi doonaa kabacdi waxaa jiray dadka bas inay masalaan baa la doonayay dadka dawladda u shaqeeya waxay ku lahaayeen iyaguna ma labay lahaayeen isbisanin ma ogi oo dadka dawladda u shaqeynaya waxaa ka mid ahaa marka Maxamed Cawaale oo ku soo galay inuu dadka dawladda u shaqeeyo Soomaalida inuu masalo ayuu ku soo galay kabacdi markaas markii la yiri calankii alla sameeyo SYL waxa uu samaysnaa calan muxuu ahaa xidigo leh 5 afood oo xidigtaas 5 af leh oo masalaha iyo sida loo yaqaano 5 wadan oo wadanka loo qaybiyay ayaa jiray marka axsaabaha kale waxay ahaayeen axsaabaha loo yaqiinay kulli kuwa talyaaniga la shaqeeyo Baro-Talyaanka ayay ahaayeen waa wax SYL iyo talyaaniguna markaas SYL weeye muxaarib bay isku yeeyeen la isma afgaranin weli marka axsaabahaas oo dhan waxa la wixii SYL talyaaniga la tashamayeen waxa la wixii SYL ay ka soo hadal qaado ma ay ogolayn markaas waa la ismarmari waayay markaas mar dambe muxuu ahaa Maxamed Cawaale wuxuu soo jeediyay oo yiri aan qaadano midabka calanka United Nations aynu qaadano nimankan mucaaridka ahaayo ka soo jeeday Baro-Talyaanka loo yaqiinay uma sahlanayn inay muujiyaan inay diidan yihiin wadanada tan Soomaalida maqan inay ka soo horjeestaan uma mustacid uma ahayn oo ku saabsanayd muxuu ahaa xidigta 5 af leh uma sahlanayn marka waxa calanka United Nations waa United Nations waa mid Soomaalida u darbeysay xurriyada marka midabka horta guudka oo buluuga ah asaasuu ku soo baxay kabacdi waxa la yiri calankaas oo sidiisa ah oo United Nations hadda calanka dhexdiisa waxa ugu masawiran adduunka oo dhan calaamada oo dali maabka sida
yaa ku masawiran oo iyagu ah inay calamka adduunka oo dhan ay masalayso markaasuu waxaa lasoo wuxuu yidhi xidigta soomaalida maqan dhexdaa lagaga dhigo saasaa laysku waafaqay calankaas horta saasuu ku soo baxay precisely saasuu ahaa maxamed xawaalada sidaasuu brocesskaas uu keenay calanka United Nations ayuu ku hana qaaday inuu ku muuqdo calankaas ninkii isagu indisay oo keenay waan gartay marka maalintii la saarayay ee la dejinayay kuwii isticmaalka dareenkiinu sidee buu ahaa maalin laga sheekayn kara ma ahayn aniga ma aha every Soomaali oo waqtigaas joogay meel uu joogaba dareenka aan qabo anigu ma aqaan in yar oo hadday jiri karaan I don't know laakiin ma u malaynayo inay jirin maalin waxay ahayd aan dib dambe loo faraxii ka maalintaas muuqday I don't think dib dambe inuu u dhici karayo muuqan karayo ma u malaynayo maxaa jira waxa isku soo aadamay laba shay oo muxuu aasaaska halganka dhan ku dhisnaayeen ayaa isku soo aaday waxa ahaa mid iyadoo oo maalintaas July 1 waxaa ka horeeyay 26 June ayaa waxaa wadan muxuu ahaa dhulka Ingiriisku haysan jiray yaa xorriyo qaatay intaan xorriyada oo lagu dhawaaqay 26 ka hor ayaa waxaa labada wadan oo midda tan oo la ogyahay July inuu xorriyada qaadanayo horey loo ogyahay iyo midda tan oo Ingiriisku soo hormariyay xorriyadeeda intaan July la gaarin u soo hormariyay oo muxuu ahaa sababtu u soo hormariyay hadda kuma dheeraanayno laakiin sabab xoog leh ayuu u soo hormariyay markaas hore loogu heshiiyay inay July 1 inay isku darsamaan iyadoo wadankaasuna xorriyadiisa 4 maalmood haystay marka maalintaas July 1 maalin waxay ahayd aan halmaami karin laba farax oo midna yahay laba wadan oo 80 sano qaybsanaayo kala maqnaayo ajaanib kala xukumayay oo sida iyagu ajaanib oo kale isu iyagoo walaalaha ayaa isku soo darsamay mid kalena waxay ahaayeen labadan wadan 8 sano isticmaal kor saarna ya u madax banaanaaday taladooda inay iyagu xukumaan marka waxay ahayd maalin bil xaqiiqati aan laga sheekayn karin bay ahayd waan gartay marka dadkiina xilliga joogay waxa laga yaabaa xaaladda maanta markay arkaan in dareen xanuun badan ay ku dhasho bal dareenkaaga ama dareenka ruux maalintaas joogay aan ku weydiiyo anigu ma aqaano hadda maanta maalintaas dadkii joogay oo waxgaradka ahaayo sida hadda aniga da'daydoo kale ah ma hubo inta ma badnaan u malaynaya dadka nool maanta ma badnaan u malaynayo maalin markaad maalintaas xusuusatid oo aad bilxaqiiqati aad arrinta Soomaaliya ay maskaxdaada iyo qalbigaaga xoog ku leedahay waxa weeye maanta waxa Soomaaliya ka dhaxaya haddaad aragtid yaa waxa ka soo haraya maba macnayn karaba waxa ka soo haraya muxuu ahaa saruugmada iyo walwalka iyo xalool xumada kugu dhaxaysa ma malayn kartid هديلين عليه هدعي هديلين وهي قاعد يسمو عليه هدعي هديلين